Diblomaasiyadda ayaa daawanaysan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan qaybta arrimaha Soomaaliya waa 25ka bisha 11aad 2025 haddii aad ugu cusub tahay subscribe tahay iga ilaabin laba qodob ayaan idinla wadaagayaa waxaan ku horeynayaa qodobkan sanad dagaal kadib Axmed Madoobe oo Xasan Sheekh kaga adkaaday 5 goob oo dagaal ila socod ilaa iyo dhamaadka 12 bilood ka hor Axmed Madoobe ayaa loo doortay madaxweynaha Jubbaland doorasho ay dowladda federaalka si weyn uga dagaalantay oo la mid ah tii hore Kismaayo uga dhacday 2019 Xamse iyo Xasan ay raaliga ka ahaayeen laakiin tan dambe way ka dagaalameen madaxweynaha iyo wasiirka koobaad sababtuna ay tahay in Axmed Madoobe uu diiday inuu ka sii mid noqdo wax ka bedelka haykalka dowladnimo ee dalka ee Soomaalida hore ugu heshiisay dagaalan waxba la iskula harin ayaana xilligaasi kadib la aaday 12 maalmood kadib doorashadaasi madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u sheegay qaar ka mid ah wakiilada caalamiga ah inuu xilligaasi si buuxda uga adkaanayo Madoobe ka qabsanayo madaxtooyada oo kaga shaqeeya Kismaayo una baahan yahay waqti iyo diyaarado oo ciidamo uga dejiyo deegaano ka mid ah Jubbooyinka waaranka maxkamadaha ayaa la jaray ilaa maanta lagama laaban nidaamka dowladnimo ee dhutinaya ayaa qabriga loo dhaweeyay garsoorka waa la macno dilay lama kala roonaan waxna lama xirin hadda sanad kadib villa Soomaaliya waxay u muuqataa mid hunga dhaqaale iyo burburba ka joogta qorshe kasta oo ay isku dayday 5 jiho oo dowladda federaalka ay ka weerar tagtayba waa lagu soo jabiyay lagana dhibco tirsaday yaase loo ciqaabaya Raas Kamboni fadeexad aan xal loo helin dhiig wiilal Soomaaliyeed oo lagu ciyaaray ilaalinta haybadda askariga Soomaaliga iyo tan dowladnimada labada dhinac midkood midna lama xirin madaxweynaha ayaa amar ku baxshay in Raas Kamboni loo daabulo qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka laakiin taasi sanad kadib fashilkii ka dhacay wali cidna wax lagama weydiin taliyaha xoogga dalka oo dhawaan ka hor hadlayay aqalka sare ayaa difaacay in wiilal Soomaaliyeed la isku dilo ilaa maantana qaarkood nolol iyo geeri midna aan lagu hayn kasoo in xuduudaha ay ka tallaabeen haddana wali waa loo adeegsanayaa dagaalada siyaasiga mana jirto aragti dowladnimada Soomaaliya u heelinaysa dhaqaalaha waa lagu dhiig baxay ila wareedyo aad uga warqaba jabka dhaqaale ee dowladda ka soo gaaray duulaanka Axmed Madoobe ayaa sheegaya in sanadkaas dowladda ay ka bixisay qasnadeeda lacag ka badan 10 milyan oo dollar oo laga soo xareeyay dhulal la xaraashay qaar ka mid waxa la siiyay shisheeye si ay uga dhabeeyaan in damaca Xasan Sheekh uu hirgalo laakiin laguma guuleysan burburka shacabka xayraadii aan shaqeyn habdhaqankan inkastoo uu dhawaan gal ahaa haddana madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tijaabiyay ficilo horey uu uga cabin jiray xilligii mucaaradnimada oo uu arkay mid halis ku ah nidaamka dalka adeegyada rayidka duulimaadyada ayaa laga joojiyay Jubbaland laakiin taasi guul ma keenin mana xanibin dhanka Axmed Madoobe iyo xubnihiisa oo meesha ay doonaan u socdaalayay hayeeshee shacabka ayaa dhibka ugu badan oo ku dhacaya Jubbaland cusub dhalanteed aan dhab noqon jabkii Raas Kamboni kadib dowladda ayaa afka saartay gobolka inta badan loo adeegsanayay sanadooyinkii la soo dhaafay colaado aan xarakad dhalad ahayn gada waxa laga sameeyay xayiraad duulimaad dagaalo hubaysan ilaa maantana beled xaawaduleedkeeda ciidan deegaanka ku kala dagaalamaya ajandayaal siyaasadeed oo aysan lahayn ayaa isku horfadhiya in la aqbalay aragtida Jubbaland cusub oo la sameeyo gada ayaa fashilantay iyadoo ay dalalka dariska madaxweyne Xasan Sheekh si cad u sheegeen in agagaarka xuduudaha aan la siyaasadeen karin taasi waxay abuurtay in agaasi meelmar ay ka noqon weyday ajandaha villa inkastoo madaxweynaha uu hayso dad aad ugu shaqeynayo degmada muhiimka ah ee Dolo garoonka diyaaradaha ayaa waxa yeelan dagaal siyaasadeed u dhaxeeya Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh xilli Kismaayo iyo Dobley diyaaradaha la fasaxay lacagtii ka miisaaniyadda bangiga adduunka ay gaartay dhanka Jubbaland siyaasiyiinta gado ee xukun doonka ilaa xubnaha kuraasta jooga ayaa awoodi la inay xayiraadda meesha ka saaraan wadahadalkii waa fashilmay sanad kadib madaxweyne Xasan ayaa u socdaalay Kismaayo oo ku hungoobay inuu heshiis la gala Axmed Madoobe 4 jeer oo kala duwan ayuu 90 cisho gudahood waan iyo dhaxaadin weydiistay Kenya Imaaraadka Carabta siyaasiyiin dhexe iyo Ethiopia dhammaan miradhal ma noqon Jubbaland waa ku adkaysatay doonisteeda Axmed Madoobe wuxuu hadda u qalab qaatay inuu Xasan Sheekh bedelo 12 bilood iyo kalkoos kadib madaxweyne Xasan Sheekh oo jid kasta u qaaday sidii uu uga adkaan lahaa Axmed Madoobe waa dhici weyday meelaha laga dhaxlayna waa mid uusan xusuusteeda jeclaysaneyn madaxweynaha iyo xirtiisu balse hadda Axmed Madoobe
waxa uu qalab urursaday sidii uga dhabeyn lahaa ka shaqaynta gal uu yaqaano ah in doorasho la aado xasana lagu saaro hannaan doorasho. Kismaayo waxay isku diyaarinaysaa martigelinta kulan lagu go'aaminayo mustaqbalka doorashooyinka dalka iyo siyaasadda guud, taasoo micnahaan ka dhignaanaysa in baaqi Kismaayo ahaan doono nuxurka kama dambaysta ah ee Xasan Sheekh u qasbayo xukun wareejin iyo aqbalka doorasho uusan door badan ku lahayn. Ugu dambeyn, Axmed Maxamed Islaam Madoobe waa ka adkaaday Xasan Sheekh iyo si buuxda isugu raacsan yihiin dhinacyada siyaasaddu kalkii labaad oo ay kuraasta isku soo gaareen, tan oo ka dhigan in madaxweyne kasta oo villada yimaada oo gashada kaba hore loo xirtay uu marayo isjiidka hadda. adiguna maxay kula tahay qaybta hoose fikradaada igula wadaag. Markan qodob aan horay idinkula wadaagay balse la iga soo dalbaday inaan dib u soo celiyo ayaan idinla wadaagayaa. Waa Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh dagaalkooda oo si rasmi ah u bilowday, iyadoo xaaladda siyaasadeed ee dalka ay tahay mid cirka u sii kacaysa isla markaana isbedelo waaweyn la filanayo in ay markaasi dhacaan. Ayaa waxaa lagu soo waramayaa in magaalada Muqdisho ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aad saameyn ugu yeeshay dhanka Villa Soomaaliya. Wararka aynu helayno ayaa waxay tibaaxayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu aad ugu dareemayo culays siyaasadeed dhaqdhaqaaqyada oo magaalada ka bilaabay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wararka aynu helayno waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh uu hadda isu dayay inuu ka hortago qorsho isaga halis ku ah dib u doorashadiisa oo uu magaalada Muqdisho ka wado madaxweyne Farmaajo. Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in dalka xaalad adag ay ka jirto. Waxa uu sidoo kale la soo baxay qorshayaal kale oo uu ku doonayo in shacabka uu mar kale ku orkacsado madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo si taageero kale uu u helo. Farmaajo waxa uu sheegay in uu ka shaqayn doono in mushaaraadka loo kordhiyo ciidanka xoogga dalka ama guud ahaan ciidanka qalabka sida. Waxa sidoo kale sheegay inuu ka shaqayn doono in la dhimo canshuurta maciishada ee timaada Soomaaliya si dadku ay u helaan cunto jaban. Arrimahani waxay yihiin iyo kuwa kale oo hadda magaalada Muqdisho uu ka wado Farmaajo qorshayaal halis ku ah ama dhibaato ku noqonaya in mar kale la doorto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dadku shacabka ah inta badan hadda ay hayaan, maadaama dadku ay ka cabanayaan arrimo dhaqaale xumo iyo sidoo kale in laga barakiciyay dhulal ay deganayeen oo hanti dawladeed ah. Arrintan ayuu haddaba Farmaajo waxa uu kaga gol leeyahay in uu sii xoojiyo si dadka shacabka ah iyo madaxweyne Xasan Sheekh uu isku tuso. Madaxweyne Farmaajo oo lagu xanto inuu yahay nin shacbaawi ah ama markaasi inta badan dareenka bulshada la falgala ama ka shaqeeya wax bulshada aad u soo jiita ayaa hadda qorshahaasi wada. haddaba xoga aynu helayno waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrinkaas uu ku baraarugay isla markaana hadda uu bilaabay in laga hortago dhaqdhaqaaqyadaas, la sameeyo dacaayadooyin iyo arrimo kale oo lagu sumcadilayo Farmaajo, loona sheegayo in markii horeba Farmaajo arrimahaas uu ku yimid xukunka balse markii dambe la ogaa inuu gadaal iska bedelay. sidoo kale waxaa jirta in madaxweynihii hore Farmaajo uu wado qorshayaal uu kula macaamilayo siyaasiyiinta iyo sidoo kale xildhibaanada iyo xubnaha kale ee hadda madaxweyne Xasan Sheekh taageersan, isaga oo saacadihii la soo dhaafay iyo habeenadii la soo dhaafay gurigiisa oo ahaa mid aad loo buuxay waa Farmaajo, isla markaana loo hadalhayay ama lagu gorfeenayay xaaladaha dalka iyo isbedelada soo socda. taageerayaal badan ayuu durbadiiba kasbaday madaxweyne Farmaajo oo lihiisana waxa uu yahay mid si weyn ku soconaya. marka la fiiriyo dhanka Villa Soomaaliya, arrinkan culays ay ku tahay madaxweyne Xasan Sheekhna wuxuu doonayaa in arrinkaasi laga hortago. inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh laga soo xigtay inuusan cabsi badan ka qabin madaxda mucaaradka oo saameyntooda ay hoos u dhacday, haddana sida hadda uu u soo kabanayo madaxweynihii hore ee Farmaajo ayaa ah mid aanan la dheelsan karin, indhahana aan laga cishan karin, waxaana uu muujinayaa inuu weli uu miisaan siyaasadeed ku leeyahay saaxada siyaasadda ee Soomaaliya. inkasta oo dadka inta badan ay hadda yihiin dad wax fahmay, internetkana aad u isticmaalaya oo kala ogaanaya ama kala garanayo dhagaraha iyo markaasi waxyaabaha muhiimka ah oo siyaasiyiintu ay qabsanayaan. haddaba Xasan Sheekh waxyaabaha aadka loogu dhibsaday waxaa ka mid ah barakicinta dhulalka ay ku noolaayeen kumanaan shacab ah ama boqolaal shacab Soomaaliyeed oo miciinsanayay, deegaansanayayna guryahaasi muddo aad u fara badan. markii si fool xun looga kiciyeyna aad ay ugu kaceen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. lama oga in cidda markaasi guuleysan karta, laakiin waa doorashooyin xasaasi ah, inkasta oo aan xitaa la ogeyn sida ay wax u dhici karaan ama doorashooyinka waqtigooda sida ay noqon karaan.